wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa wajahaya cadaadis kaga imanaya mucaaridka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada dalkaasi kuwaasi oo dalbanaya inuu Boris Johnson uu iscasilo iyadoo ra'iisul wasaaraha loo haysto eed ah inuu bishii May ee sanadkii 2020 uu isugu yeedhay 100 qof oo xaflad loogu sameeyay beer ku taala xafiiskiisa Downing Street ee magaalada London iyadoo xilligaasi dalka ay saarneyd xayiraadda dhanka isu imaatinka ah maadaama uu dalkaasi la tacaalaya xanuunka COVID-19 oo waqtigaasi marayay heerkii ugu xumaa xildhibaanada dalbanaya inuu Boris Johnson iscasilo ayaa ku doodaya in ra'iisul wasaaruhu jabiyay xeerkii lagu mamnuucay in wax isu imaatina la sameeyo maadaama uu dalku ku jiray xaalad aad u xun hase yeeshee Boris Johnson oo baarlamaanka hortagay ayaa qiray in ay jirtay xaflad dadku isugu yimaadeen beertiisa isagoo intaasi raaciyay in uu dareemayo cadhada ka dhalatay balse Johnson ayaa meesha ka saaray arrinta xildhibaanadu soo jeediyeen ee ah inuu xilka iska casilo dalka Ingiriiska ayaa ka mid ahaa dalalkii ugu xumaa ee uu sida xun u saameeyay safmarka COVID-19 iyadoo dalkaasi xataa la waayay sariiro la kala dhigo bukaanada uu soo ritay xanuunku waxaana dadkii uu xanuunkaasi haleelay ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska oo xanuunkaasi uu helay sanadkii 2020 eedahan hadda loo haysto Boris Johnson ayaa noqonaysa tii ugu cusleed ee ra'iisul wasaaruhu kala kulmo arrimaha xanuunka COVID-19